ka dhagaysa raadiyo xuriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyay faallooyin iyo barnaamijyo xiiso leh raadiyo xuriyo codka shacabka ogaadeeniya ciidamada gumaysiga Itoobiya ee ka howlgala gudaha Ogaadeniya siiba gobolkaasi Jarar degmada Gunagado ayaa xasuuq ba'an ka geystay laba habeen oo isku xiga degmadaasi Gunagado ay ku xasuuqeen dad tiradooda lagu sheegay 16 qof oo laba kamid ah ay horeeyeen xaaladda magaalada Gunagado ayaa xasuuqaasi kadib lagu soo waramayaa in laga qaxay oo dadkii ay u kala qaxeen magaalada Dhagaxbuur Jigjiga iyo qaar duurka u qaxay dhimashadaasi 16 qof ah mooyaane waxaa la soo sheegayaa in dhaawacu uu kor u dhaafay ilaa 20 halka qaar kale lala tagay oo aan xaaladooda ilaa iyo hadda waxa ay ku sugan tahay la ogeyn jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa bayaan ka soo saartay xasuuqaasi ay ciidamada gumaysiga Itoobiya ka geysteen degmada Gunagado haddaba si aanu wax uga ogaano xasuuqaasi qaabkii uu dhacay iyo cidda wax ku waxyeelowday ee lagu xasuuqay ayaa waxaa raadiyo xuriyo u suura gashay inay la xiriidho Cabdi oo codsaday inaan magaciisa oo buuxa la sheegin arrimo la xiriira xagga amnigiisa kuna sugan magaalada Dhagaxbuur goobjoogna ahaa xilligii uu dhacayay xasuuqaasi ka dhacay Gunagado waxaana ugu horeyntiiba Cabdi weydiinay xasuuqaasi sida uu dhacay Gunagado walaal Cabdi Nuur xasuuq waxa ka dhacay xadka ka baxsan dhimashadu hadda inta la hubo waa 14 qof bay maraysaa labadii oday hore la dilay Cabdiqaadir Foolow iyaga xaqiiqo ku noqotay iyaga dilay marka dadkaas waa la laayay qaar baa dumar gabdho uur laba qaar yahay oo kolkay ay laayeen ilmihii oo nool xabad ay ku dhacdo dhaqdhaqaaqay loo tagay meesha waxa ka dhacay xasuuq aadamaha ka baxsan oo wax u adkeysan kara aan jirin walaalle maxaa sababay xasuuqaas oo markii hore sababtii keentay xasuuqaas ee uu ka bilowday muxuu ahaa xasuuqa horta kolkii koobaad waxa Ogaadeniya waxa ka jirta waa la isu qayilaa meeshan asal ahaanba walaa loo qayilay oo qamadiga lagu yareeyay qolo way isu qayileen deedna kolka isu qayileen walaa deedna lagu gambiyay odaygaas iyo kii gudoomiyaha magaalada ahaaba la dilay ciidamaha waarina loo kireystay oo dilay oo gowracay kabacdi arrinkii uu soo baxday oo dib ka soo baxday in aadan waris baa ciidan kala yimid meesha la dhaho ma garanaysaa ayay Jigjiga marka halka dadka xasuuqa oo shacab iyo kuwa hawaarin wax walba lagu cagta mariyay oo qaar dumar yihiin iyo odayaal waaweyn dadkaasa sida u galay marka sababtu halkaas ay walaal lahayd Cabdi kala saar in aadan waris ciidankan dambe oo la yimid ee liyu booliiska ee wax xasuuqay sababta uu Jigjiga oo la yimid maxay ahaayeen ma aaritaan labadii oday ee hore oo aan maqalay foolay in uu sodogii ahaa ayuu u aarayay mise amar buu ku socday inuu xasuuq meesha ka geysto ahaa hadda dadku laba koor aaritaan buu ahaa ugu aarayay weeyaan macnuhu waa halkaas oo labada oday ee mid sodogii yahay buu aarayay marka sidaas buu dadka ku laayay marka haddii uu aaritaan ahaa maxaa keenay dadkan shacabka inuu xasuuqo nimankii wax dilay liyu booliis bay ahaayeen markii hore labada oday dilay liyu booliiska kaliya muxuu u koobnaa waayo dadka shacabka u laayay horta Cabdi Nuur walaal hukuumadka Ogaadeniya weligeed buu ka sii jiray waxa jirtay in meesha balluur la yiraahdo odayaal lagu laayay wiil curyaadaho bira ku boodi lagu dilay marka walaal hore loo laayay hukuumadku jiray kuwana walaal waa lagu barxay weeyaan marka macnuhu waa sidaas weeyaan Ogaadeniya xasuuqa uu ka soo jira 20 sano hadda dagaalka gobonimo dayday uu ma garanaysaa wadayba xasuuq uu ka jiray ama shacabka ha ahaado ama taageero kale ha ahaado dadka waa la iska leeyahay walaal waa tahay labada oday ee hore la dilay ninka Fooley mooyeen odayga kale gudoomiyaha degmada magaciisa waxaa la oran jiray Khadar baa la oran jiray odayga ma garatay labadaasi oday ma gowrac bay ku dhinteen mise waa la toogtay oo magaalada dhexdeeda lagu toogtay say qaabka u dhacay dilkoodu labada oday guryahooda lagala baxay xilli habeena niman iska dhigaya magac urur inay ku soo isku soo baxeen ciidamadooda ka bacdi way u yeedheen way la baxeen waxay la tageen meel tog dhexdiisa haweenkiyoodii baa daba galay marka ay qabeen haweenkii dana way ku qayliyeen ka bacdi haweenku markay ku qayliyeen labada ninba waa la gowracay birtaan laga aslay macnuhu saas oo ah wax xabada ku dhacday walaal lama jirto liyu booliiskii waxaan sameeyay hawaarintii waxaan samaysay markii dambana aan maqalay ina aadan waris in uu ama laayay ama uu ogaadayba ma la garanayaa shakhsiyan ma loo garanayaa shakhsiyaal waa la garanayaa nin cali ina cabdiwaala dhaha ku jiray oo la dilay asaga
marka waa toos baa loo garanayaa ha waa la garanayaa walaale odayaashan dilkooda marka labadan oday dilkooda maadaama ay kamid ahaayeen odayaashii magaalada midna gudoomiye uu ahaa liyu booliisku ama hawaarintu maxay ugu soo marmarsootay oo loo dilay ma amar la soo siiyeyba maxaa keenay horta waxaa jirta asal ahaanba odayaasha sabaanka meesha qamadi baa lagu qaataa waxay arkeen odayaashan oo kala dagaalamaya walaale xagga ma garanaysaa shacab weynaha inay wax gaadhsiiyaan xagga qamadiga oo xaggoodu qamadiga way ku yareeyeen meesha odayaasha magaaladana way ahaayeen waxaa jiray nin geeljiro la dhaho oo horey meesha gudoomiye uga ahaan jiray degmo oo asaguna sidaas oo kale inuu shacab weynaha ka yara dadaalo isku yara dayayey oo inay ilay xilli uu meesha yimid xabsiga u dhaxaabay kana walaale kuwii hore unbay hor socotaay oo qamadiga unbaa lagu dilayaa nimankaas maxaad waxa ugu qabanaysaa inay iyagu ka shaqeeyaan ay cunaan macnuhu waa sidaas weeyaan yaad haysaa magacyada dadka la xasuuqay 14 qof ahaa labadan oday miyay ku jiraan 14 mise 16 bay ku noqonayaan yaad magacyada haysaa waxay ku noqonayaan walaale 14 dambe iyo maxay ahay 16 bay ku noqonaysaa labada oday baa 16 ku ama garatay magacyadooda maxaad ka haysaa magacyaantooda hadda waxaan ka hayaa Rayfal Sheekh Siyaad baan ka hayaa magacyaantooda waxaan ka hayaa Dayiba Cabdi baan iyagan ka hayaa magaceeda oo kooban waxaan ka hayaa oo kale Xasan Xaashi oo inaayihiisa oo buuxa aan haynin intaa waan ka hayaa waa gatay dumar iyo rag bay isugu jireen laba dumar mid Dayiba la dhahaa kala magaceeda ma hayo insha Allah waa soo heli doonaa laba dumar waa la xaqiijinayaa ma garatay xaaladda magaalada hadda waa magaalada Gunogada hadda xaaladeeda xasuuqa kadib waa sidee xaaladda Gunogada arinku faruhu ka baxay Gunogada way qaxday meel waxay u kala yaacday qaar duurka u yaaceen qaar tigtige u carareen qaar waxay u carareen dhagax buur qaar waxay u carareen birqod hadda meeshu xaaladeedu meel caadi ah ma aha meel caadi ah walaal ma aha waa la kala cararay waa la kala qaxay magaalada hadda kooxdii hawaarinta iyo bisadaha unbaa yaacaya meesha magaalada wax maamul ah ama ka ahaada kii Ethiopia ama kii dabaqoodiga hawaarinta ha ahaadee wax maamul oo yimid oo arrintan ama ka hadlay ama wax ka qabtay ama calal aqal xataa magaalada bedel ku soo rogay ma jira hadda wixii meesha horta asal ahaanba maamulkii meesha joogay waa la tagay oo ma garanaysaa waa la ururiyay badankoodii galbeed buu la kacay hadda qaar meesha hadlay oo ma garanaysaa kuwa dabameerka iska ahaayee dabaqoodiga waxaynu naqaanaa maleeshiyaanka oo hadda magacyaantan oo maxaa dadka sida loogu galay waxaas oo dhan waa la kixiyo galbeed baa lala kacay baawur baa lagu gurtay qaar waa meesha ku xidhan yihiin wax cunta shaqadu sidaas weeyaan waxaa ku jira dadka la laayay oday Cabdishafiic la yiraahdo ku jira waa sidaa macnuhu yaa la tagay dadka macabdaadan waris cabdi aadan waris baa la tagay aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa dhageystayaal Cabdi oo codsaday inaan magaciisa oo buuxa la sheegin arrimo la xiriira xagga amnigiisa oo naga warramaya xasuuqii ay ciidamada gumaysiga Ethiopia toddobaadkan gudihiisa ka geysteen magaalada Gunogado ee gobolkaasi Jarar oo isagu goobjoog ku ahaa halkaasi waa magaalada Gunogado ee xilligii xasuuqaasi uu dhacayay haatana ku sugan magaalada Dhagax Buur warka xiisihiisiyo xogta caalamka taalla halka soo xulanaysa ee xogta aad ka helayso waa Radio Xorriyo xafiiska quraanka iyo xadiista rasuulka halka soo xiganaysa waa Radio Xorriyo ra'yiga xubnahan iyo xusuusta halgamaaga halka soo xiganaysa waa Radio Xorriyo